okay hadda ku soo noqo qaybtaadii hore kadib waxaad timaadaa xagga sare bidixda kadib waxaad ku soo dhufataa team marka teamsan ku soo dhufato qaybtaan ka shaqeynay meesha ay ku qoran tahay blog post waa meelaha postiyada laga soo boxtigaaga iyo waxa aad ka soo gelisay tiradooda iyo waxoogaas ku soo qoriya halkan haddaan ku qaad bay halkan ay ku qoran tahay haddaad ku qorto magacaaga bay imka kadar haddaan ku qoro wuxuu soo saari doonaa markuu hadhow aan soo posti gareeyo xaggiisa sare ku soo qori doonaa bay hebel ayaa soo posti gareeyay marka hore uu ku qoran yahay marka ka baydaas la siga daaya qaybteedu wax macno weyn ma sameynayso marka la yeegro si yar gaar uga hadli doonaa iyada wax hadda ay u baahan tahay malaha inta muhiimka ayaynu hadda wadanaa meesha ay ku qoran tahay about us ayaad ku soo dhufanaysaa qalinkeeda about us halkan ayaad ku qoraysaa wixii uu ku saabsan yahay website-kaagu oo yani waxaad soo bandhigayso okay waan ku qoray website-keena waxaan ku soo bandhigi doonaa wixii website-ka ku soo bandhigi doonay ama wixii naga noogu saabsanay about us-keena website-ka waxaan ku soo bandhigi doonaa wararka Soomaalida iyo caalamka oo ku bixi doona af Soomaali welcome ayaa ku qoray kulka adiga wuxuu ku saabsan yahay aad ku qoran doontaa website-kaagu qaybta ay ku qoran tahay about us haddii ka xidhan marka hore waana furataa haddii halkaas ka xidhan tahay waana furataa marka hore inta badan way furan tahay marka saad kadib waxa ku dhufan meesha ku qoran tahay save hadda ka waan save gareynay oo about us-ki oo hadayna kan ku soo dhufano oo kor u jiidno meeshan ay ku qoran tahay about us waxaas ku qorqornaa hadda haddaan website-kiga aan ku dhufto inta hoos soo jiido aan wariyaba halka wariyaha ay ku qoran tahay lafteeda aan ku dhufto waxa halkii hoose way isbedeli doontaa kor u jiid wakana waxaynu baahnay aynu ku soo qornay about us-keeni oo si qurux badan u qoran okay haddaynu ku soo noqono qaybteena hore waxaan ugu xigtay follow us taasi waxa khasab inaad soo diyaarsato Facebook link-gaaga soo qaad Facebook link-gaaga marka soo qaado tusaale halkan ku qoran tahay Facebook kan ay ku qoran tahay waxa timaada qalinkiisa qalinkaadi marasa marka timaadid halkan hoose ayaad ku soo baasti gareynaysaa linkigii Facebook-gaaga qaybta linkiyada mar isagana video yar gaabanayeen hadda ayaynu ka diyaarin doonaa qaybta linkiyada waan iska soo dhaafanaa hadda wax saynu ku ballansanayn inaynu teamku waxaa ka bedelo post iyo pages nine sameynayeen hor ugu sii soconana qaybtan kan saashaadixay isaga soo dhufanaya haddaan xaggan waxa ugu hooseysay marka xagga bidixda iskaga jiid page labaad ay ku furmaya meesha ay ku qoran tahay link list ku qoran tahay waxa noqonaysaa waa qaybtan hoose ee website-kaaga oo qaybtaasi ay noqonaysaa meeshaas link-ga laga edit gareynayo haddii aan ku soo dhufano link list oo xaggan wadno waan ku soo dhufano qalinkeeda halkan waxa noogu qoran waa home iyo about waa waxa halkan hoose ku qoran wax kale ma home about contact us iyo RTL waxa version-kaas waxa ku qoran kaadan doonay ma iska saaraysaa kaad jeceshay delete ayaa ku dhufanaysaa ka saaraysaa waxa doontaa ka bedelaysaa kuwan dhamaantood wax baynu ku soo gurguri doonaa hadda kaasina ka hoosina ka saarnaan macnaha inuu taagnayn waan ka saaray oo ka baxay hadda saddex bay igu soo haray kadib save baan ku dhufanayaa marka save ku dhufto halkan waa inuu ka baxaa waxa ay ku qoran tahay LL marka aan dib soo soo dhufto ama hoos soo jeedo page-ga oo kaasi hadda inoogu ma jirto oo wax inoogu qoran kana waan bedelinaa hadda waa okay haddaynu ka sii soconno waxaan u boodanaa qaybta la yiraahdo qaybaha kale waa iyagana videoga xigaayin ka diyaarinana salinkiyada loogu soo daray iyo sida loo sii edit gareeyo hadda waxaan u boodanaa qayb xagga sare ku taal oo xaggan meeshan ugu hooseysa marka timada qaybtan aad hoos kor soo jiido meeshan ku qoran tahay features post waa waxyaalo ma postiyada tiradooda ayaa la soo qorqori doonaa halkan ay ku qoran tahay about us iska daa pages isaga sii xidhay report abuse tay ku qoran tahay kala tusaale iska xidh tan oo kale inta qalinka ku dhufato xidh waxa ka sare ku dhufo kadibna save ku dhufo taadan doonaa iska xidh labels iska daa kugu jiro blog archive kan iska xidh isaga soo on iska xidh wafte kan ay ku qoran tahay isla kan ka xigana iska xidh waxaas wax macno badan soo kordhinaya remove iska dhakan ka saar
okay soo soco arsankaas uu ka xiran yahay search blogna waa isaguna waa kii laga dhex search gareynayay ama gudaha website-ka marka la joogo la sii raadinay postiyada isaga laftiisa iska xid kan u baahna waa furan doonaa safety oo waxyaalaha xaga meelaha kaaga muuqanaya baarka dushiisa main tagiskaasna isna iska xid isagana xid safety HTML JavaScript kaasoo kale iska xid waxay si faraha badan leh ka muuqda xaga sare iyo waxyaalihii ku jirjiray weeye meesha ku qoran tahay popular post iska daayaga hadda follow astan iska daa intaas iska daa kor u soo soco meeshana ugu muhiimsan oo ah main menu-da oo aynu ka samayn doono pages-kan aynu ka samayn doono xaga sare marka lagu dhufto wixii halka soo muuqanaya pages-kaaga uu yeelan doono website-kaagu ayaynu iyadana edit gareysan doonaa fiidiyowga ayaa sii dheeraanaya intaa wixii ka badan marka fiidiyowga intan ayaynu kusoo koobanaa insha Allah fiidiyowda ma jecleen 5 daqiiqo iyo 6 daqiiqo ka bataan inaan soo wada koobo ayaan jecelahay insha Allah intan ayaynu ku joojinaa fiidiyowga xiga ayaan postiyada iyo pageska quruxda badan sida loo sameeyo aynu ku eegi doonaa aynu ku samayn doonaa insha Allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh